kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada warbixinihii ugu dambeeyey ee duqeymaha culus ee Israa'iil ay ka geysatay dalka Lubnaan. Israa'iil ayaa waxa ay jabsatay telefoonada dadka ku nool Lubnaan iyadoo sidoo kalena idaacadaha qaar si isku mid ah fariin duuban ay ku gudbisay. Israa'iil ayaa telefoonada dadka ay ka hayso inta badan waxaa lagu sheegay haddii aad ku sugan tahay dhisme uu yaalo hub ka fogow ilaa 1,000 mitir. Fariintaasi ayaa waxaa u dirtay dhammaan dadweynaha ku nool dalkaasi Lubnaan, taasi oo muujisay in Israa'iil ay hayso dhammaan xogaha dadka ku nool dalkaasi Lubnaan. Tani waxa ay ku soo aaday xilli duqeymo aan horey loo arag ay Israa'iil ka geysanayso koonfurta, bariga iyo waqooyiga dalkaasi Lubnaan. Dhimashada ayaa maanta oo kaliya waxa ay gaaraysaa ku dhawaad 300 oo qof, halka 1,000 qofna dhaawac ay yihiin. Balse howlgalka tiknoolajiyadda ee dhinaca isgaarsiinta ayaa ka duwan sida kan Gaza. Walaaca ugu weyn ee la muujinayo ayaa ah sababta ficilada laga arkay Israa'iil ee ah in ay hayso dhammaan xogta telefoonada dadka ku nool gudaha Lubnaan, waxayna arrintaasi dhalinaysaa inaysan Israa'iil wax xog ah aysan kaga qarsoonayn gudaha dalkaasi Lubnaan. Ugu yaraan 300 oo qof ayaa ku dhintay duqeymaha Israa'iil oo 22 ka mid ah ay carruur yihiin, 30 kalena ay haween yihiin, sida ay sheegtay warbaahinta dalka Lubnaan. Tan iyo saaka aroortii markii Israa'iil ay weeraro dhinaca cirka ah oo kala joogsi lahayn ay ka sameynaysay gudaha dalkaasi Lubnaan, ilaa iyo 1,024 qof ayaa waxaa la soo warinayaa in ay ku waxyeeloobeen ama ay ku dhaawacmeen duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee ay wado Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Waa khasaarihii ugu weynaa ee maalmo gudahood ay la kulmayaan dadka Lubnaan, kuwaasi oo xitaa dhimashada iyo burburka ka dhashay weerarada ay geysanaysay Israa'iil ay ka badan yihiin kii dagaalkii 2006 ay Xisbullah ay la gashay Israa'iil. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dalkaasi Lubnaanna waxa uu sheegay in laga soo wacay telefoon ayna ka soo waceen ciidamada Israa'iil oo ay sheegeen inuu isaga baxo dhismo uu ku shaqaynayay, sida uu sheegay wakaaladda wararka ee Lubnaan ee NNA, oo ku dartay in dad badan oo ku sugan Beirut ay sidoo kale heleen wicitaanka Israa'iil oo uga digaysa inay ka fogaadaan goobaha Xisbullah ay ka agdhow yihiin. Sidoo kale saacadihii hore ee saaka ayaa dadka degan koonfurta Lubnaan waxaa soo wacay telefoonno dhinaca Israa'iil ah oo u sheegaya in ay masaafo fog ay ka durkaan goobaha ay ku badan yihiin xubnaha Xisbullah iyo bakhaarada dhinaca hubka. Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay wadaa duqeymo aan kala joogsi lahayn oo ka geysanayso gudaha dalkaasi Lubnaan, iyadoo goobaha qaar laga maqlayo qaraxyo oo sii dhacaya, taas oo sare u qaadaysa suuragalnimada in ay Israa'iil gaarto xarumaha hubka Xisbullah mar horeba. Waxaana la sheegayaa in duqeymahaasi ay ahaayeen kuwii ugu sarreeyay tan iyo dagaalkii 2006 ay Xisbullah iyo Israa'iil dhex maray. Israa'iil ayaa ilaa iyo 150 weerar oo dhinaca cirka ka geysatay gudaha Lubnaan. Duqeymaha inta ay socdaan waxaa ka qayb qaatay in ka badan diyaaradaha dagaalka Israa'iil ee nooca loo yaqaano F-35, F-16, F-15, sida laga soo xigtay afhayeenka ciidamada Israa'iil oo sheegay in ay burburiyeen xarumo muhiim u ahaa ururka Xisbullah oo ku yaalay gudaha dalkaasi Lubnaan. Sidoo kale ciidamada Israa'iil ayaa fariimo u diray dadka shacabka ah ee u dhashay dalkaasi Lubnaan, iyagoo uga digaya inay ka fogaadaan goobaha ay bartilmaameedsanayaan. War hadda soo dhacayna waxa uu sheegayaa in ururka Xisbullah ay hadda weerar culus oo dhinaca cirka ay ku qaadeen magaalada Haifa, halkaas oo la arkayo muuqaalo muujinaya in nidaamka difaaca Israa'iil ee Iron Dome-ka uu shaqaynayo si aan horey loo arag tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza, wuxuuna ka hortagayaa gantaalada ay soo ridayaan ururka Xisbullah. Warkaasi war hadda soo dhacay ayuu ahaa wararkii ka imaanayay duqeymaha iyo dagaalka u dhexeeya Xisbullah iyo waliba Israa'iil. Waxaa kaloo la sheegayaa in Israa'iil ay gashay xaalad degdeg ah si dhammaystiran, hase ahaatee xogtan maadaama ay tahay xog cusub oo 16 daqiiqo kaliya taala, waxaan eegi doonaa in faahfaahinaheeda ay soo dhacaan saacadaha soo socda. Fadlan isha ku hay Rasmi Radio haddii aad ku cusub tahay barahayaga bulshada Facebook iyo waliba YouTube-ka, labadaba nagu soo biir oo subscribe iyo follow noo dheh. Mahadsanidin.